بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عند وضيال halkani waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho ku soo dhawaada warka TV-ga qodobada aan idinku haynana waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Qardho ee gobolka Bari halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale ayaa xarunta beerta nabadda ee magaalada Muqdisho munaasabada kooda luulyo kula dabaaldegay boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda Qatar ayaa muujisay inay ku adag yihiin dalabaadkii hore ay u soo gudbiyeen dowladaha Carbeed ee xiriirka u jaray. wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen magaalada Qardho ee gobolka Bari halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay. warbixintaana waxaa inooga soo diray Qardho waryaheena Cabdicasiis Heybe Ibraahim. wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaanada Puntland socdaal ku marayay ayaa subaxnimadii saaka kasoo ambabaxay caasimadda Garowe ee Puntland. wafdigan oo socdaalkoodu ahaa mid dhulka ah ayaa inta ay ku soo wajahnayeen degmada Qardho soo maray deegaanada Dangoro iyo Xaaji Khayr iyo Libow oo u dhaxeeya magaalooyinka Garowe iyo Qardho. maamulka degmada Qardho kan degmada shacabweyne tiro badan ayaa subaxnimadii saaka isu diyaariyay soo dhaweynta ay si heer sare u soo agaasimeen mas'uuliyiin ka tirsan Puntland. odayaal dhalinyaro haween ku labisan calanka Soomaaliya ayaa biladka koonfureed ee magaalada Qardho ku soo dhaweeyay wafdiga wasiir Juxa isagoona madaxda Puntland iyo shacabka salaan la dhex qaaday. intaas kadib wasiirka ayaa loo soo galbiyay barxadda weyn ee dowladda hoose waxaana isla halkaasi ku sugnaa shacab aad u tiro badan oo ku faraxsanaa imaanshaha wafdi ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya. maamulka degmada Qardho iyo kan gobolka ayaa wasiir Juxa iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyay magaalada Qardho. magaaladu waa magaaladaadii kolley insha Allah taala wixii uu inoo socday isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo isaga inoo ka warami doona. waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow magaaladan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa socdaalka iyo safarka aad noogu tumi waana ku soo dhaweynaa. wasiir farxad bay noo tahay inaad maanta noogu timaado degmada Qardho anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka gobolka Karkaar. shacab weynahooda soo dhawow baan ku leenahay ku soo dhawow magaaladaadii Qardho ku soo dhawow. waxa aad iyo aad aan u taageersanahay xukuumadda aad ka tirsan tahay oo wasiirka u tahay dhalashadii ay dhalatayna xaqiiqdii taageeradii aanu taageeray Puntland oo dhan oo taageertay gobolka Karkaar ay taageereen taageeradii way la garab taagannahay. dowladda federaalka uu noo joogo waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan iyo dalkiisii Puntland uu hore wax u taray markuu wasaaradda waxbarashada ahaa. wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa oo dhankiisa barxadda kula hadlay shacabka Qardho ayaa uga mahad celiyay soo dhaweynta uu sameeyeen. wasiir Juxa ayaa shacabka Qardho u sheegay in uu salaan uga wado madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. farxad iyo reereyn ay tahay inaan mar kale halkaan idinku imaado waa magaaladaydii aniga caruura iyo aniga oo xil haya iyo intabana waa maray waa magaaladaydii meelaan ku faraxsanahayna weeye. aniga ayaantan toddobaadkan waa joogay hadda gobolkan joogay magaalada Gaalkacyo ka soo degay waan wada hadal labada dhinac oo Galmudug iyo Puntland iyo waawaantii halka ka socotay aan qayb ka ahaa. waxay soo kay jirtay ciidihii baa ku soo beegmay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inay tahay 1 Luulyo waa maalintii ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliya. Cabdicasiis Heybe Ibraahim warbaahinta qaranka magaalada Qardho. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xarunta beerta nabadda ee magaalada Muqdisho kula dabaaldegay munaasabada kooda luulyo boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. warbixintaana waxaa inoo diyaariyay waryaheena gobolka
nuur saciid tahliil. xarunta beerta nabadda degmadu waa beri ee gobolka Banaadir oo ah xarun ay u dalxiis tagaan ama ay u nasiino tagaan qaar ka mid ah bulshada reer Muqdisho ayaa waxaa booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenada gobolka xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. duqa magaalada Muqdisho ayaa inta uu ku sugnaa xarunta beerta nabadda waxa uu halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradii halkaasi u soo dalxiis tagay isagoo mid u gacan qaadayay waxa uu ku dhiirigeliyay in ay maanta haystaan dawlad jecel in ay shacabkeeda dhageysato. madaxweynayaashana ay nagu soo dadaaleen Allah ka abaalmariyo laakiin ayaga waxayna dhaheen anaga waxa la idinka rabaa ujeedooyinka anaga u halgano waxay ahayd Soomaaliya oo midaysan Soomaaliya sidoo kale xor ah iyo Soomaaliya israacday u halgamay annagana oo dhalinyaro la yahay oo dad badan ay nagu jiraan waajibkaas aan saaran dadaalka sii wadno dadaalka la dagaalanka inaan xor ka dhigno shaqo la'aanta in gaajadana kor saaran ka dhigno jahliga inaan ka qaadno marka dhalinyarada dadka qaban karna idinka waa annagu insha Allah fursadii maanta ugu fiicnaad waa haysanaa gabdho iyo wiilal inaan ka wada faa'iideysano oo wax badan taasna ay noo suurtagali doonto insha Allah. gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay maalmaha xuriyadda isagoo kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed in ay kaalin mugle ka geystaan midnimada iyo xasiloonida dalka iyo dadka Soomaaliyeed xilli uu warbaahinta kula hadlay xarunta beerta nabadda. dhalinyaro waxaan noogu wada baaqayaa dhammaanteen aan ka xureyno ummadeena Soomaaliyeed gaar ahaan dadkeena hadda inta jooga ee jooga gobolka Banaadir 17 degmo Muqdishaawiinta dhan waxa ugu baaqayaa inaan ka xureyno dadkeena shaqo la'aanta inaan ka xureyno gaajada inaan ka xureyno jahliga sababtoo ah jahliga laftirkiisa haduusan qofku waxbarasho lacag la'aan qofka inuu helo oo fursad soo helo oo asaaskiisa si dhismo wuxuu la dagaalaya qofkaas jahliga marka dadku waa inaan intaas ka xureynaa ugu dambeyntii midda ina saaran ee waajibka nagu ah haddii qofka uu sharafkiisa helo shaqo waxa leeyahay shaqo waa sharaf hadduu qofka shaqo helo qofkii baahnaana la baahi tiro qofkii asaga caafimaad la'aantan haysan caafimaadka loogu dadaalo kii jahligana waxbarashada laga saaro intaasaa amniga asaaska u ah laakiin inta ka sokayso waxaan ku baraarujinayaa saaxiibaday iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo Muqdishaawiyiinta fursadda aan haysano iftiinka noo dilaacay Ilaahay ha noo siyaadiyo iftiin noo dilaacay dhalinyaro mustaqbalkeena maanta wuu noo cad yahay mustaqbalkeena maanta noo cad annaga iska leh dad kale aysan noogu hadlin aan gacanta ku qabsano. ugu dambeyn duqa magaalada Muqdisho ayaa ugu baaqay ganacsatada beerta nabadda in dadka u soo dalxiis tagaya xarunta beerta nabadda aan wax lacag laga qaadin in ay tahay beerta nabadda ma aha beerta ganacsiga taas shacabka Soomaaliyeed ayaan fariin ugu diray waa beerta nabadda qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu soo galo oo beertan ka qayb qaato oo farxadeeda ka qayb qaato isagoo aan dan ganacsi laga fiirnaa maadaama loogu talagalay beer nabadeed in ay tahay taa waxa ku xigta sababtoo annaga shacabka aan ka midna shacabku waa inay dareemaan marka ay soo galaan haddii ay doonaan wax yar ka iibsadaan laakiin inay dareemi karaan inay beertooda tahay ee lacag la'aan ku soo gali karaan marka taa micnaheedu waxay tahay beerta nabadda inay beerta nabadda ahaato oo aysan noqon beerta ganacsiga. intaasi kadib ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu goobta ka riday buller lagu muujinayaa dabaaldega maalmaha xuriyadda ee midnimada ummadda Soomaaliyeed oo ay ka soo wareegatay 57 sano. nuur saciid taaliil raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhaxana waxay ku waramayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan tuulooyin hoostaga degmada Jowhar iyo degmada Mahadaay oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. warbixintan waxa inooga soo diray Jowhar Oryaheena Abuukar Maxamed Bacadle. howlgalkani maalmihii la soo dhaafay ay ka wadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uu hogaaminayo abaandulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Abdullaahi Anood ayaa waxa uu ka dhacayay gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada Jowhar iyo degmada Mahadaay hase ahaatee inta badan dagaalada ciidamadu waxay kula gelayeen tuulada Ali Fool Dheere oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Mahadaay kooxda argagixisada
waxaana ku hargagixisada looga dila halkaasi tira maleeshiyaad ah iyo hogaamiyaashoodii sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa ka shahiiday dhowr askari iyadoo qaar kalena ay ka dhaawacmeen sida uu sheegay warbaahinta qaranka General Abdullahi Caanood deegaano badan baa ilaahay nagu guuleeyay inaan ka xoreyno cadawga Soomaaliyeed oo kuwaas oo dad badan oo shacab oo Soomaaliyeed ku laayay askar badan oo fasax ka soo qaadatay deegaanada bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku dilay waajibaadkaygu waxa weeyaan inaan ka badbaadino kooxahaas kana xoreyno ummadda Soomaaliyeed xoogga dalka Soomaaliyeed kaligiis buu maanta hawl galay laba weerarna waa galay dhul ballaaran oo baaxadiisu ay aad u ballaaran tahay oo u dhaxeeya bariga iyo koonfurta degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe buuna ka hawl galay sida Warciise iyo Qurac Madoobe iyo Qabdco iyo meesha la Cali Foldheer hadda baysno ah haddana gurmad fara badan iyo ciidan badan oo leh Soomaali iyo ajnabiba waa noo socota waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano inta ka hartay gobolka intiisa kala duwan u gudubno gobolada kale waxaana kamid ah gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe mas'uuliyiinta halkaas ka hadashay iyadoo mas'uuliyiinta aad u farbadneed waxa ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay wasiirka ganacsiga warshadaha dawlad goboleedka Shabeelle Sibriya Cusmaan Rahmaan Rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulillah tabaandulka ciidamada xoogga iyo dhammaan maamulka degmada Mahadai iyo wasiirada Hirshabeelle iyo dhammaan saraakiisha ciidamada qaybahooda kala duwan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka waxaan ugu hambalyeeynaa taliyaha iyo dhammaan saraakiishiisa guulaha ay ka gaareen iyo sida wanaagsan ay maartay uga dul qaadeen cadawga tuulooyinka badan ay soo mareen ee ugu dambeysay tuulada Cali Foldheer ee hadda maartay ay ku sugan yihiin 7 tuulo oo bangiga al-shabaab ah ay ugu horeysa saldhig u tahay Cali Foldheer 7kaas waa la tagi doonaa mana laga laabo doon dadka idin yimidna waa dadkiini maahana dadka idin kor saaraayo meel ay ka yimideen iyo meel ay u socdaan la aqoonin ma waxa idin kula talina adduunka maalinta tagayso iyo maalinta imaanayso maalin qoran waa laakiin laguma noolaado xurnimo daro waxaana iminka goobaha dagaaladu ay ka dhacayeen ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo baaritaan ku sameynaya kooxaha argagixisada goobaha ay u carareen Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed gobolka Shabeellaha Dhexe tuulada Cali Foldheer dowladda Mareykanka ayaa ku amaantay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya horumarada kala duwan oo ay sameynayso gaar ahaan dhinacyada ammaanka iyo siyaasadda warbixintan waxa inoo diyaariyay wariyahana Maxamuud Cabdi Diirshe tanjiraha dowladda Mareykanka ee u fadhiya Soomaaliya Stephen Shuwes ayaa warbixin uu ku soo aadiyay sanad guurada 57 ee xorriyadda Soomaaliya waxa uu ku sheegay in dalku uu ka soo kabanayo burburkii soo maray isla markaana hadda uu hayo wadadii dib u dhiska tan iyo imaatinkayagii Soomaaliya sanad ka hor anigoo ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waxaan goobjoog u ahaa horumar ballaaran oo Soomaaliya ay sameysay hase ahaatee weli ay jirto khatar ku horgudban horumarkaasi waxaana kamid ah abaaraha dalka ka jira dagaalka dawladdu kula jirto al-shabaab dhaqaalaha dawladda oo yar iyo laamaha cadaaladda oo sidii la rabay u xooganayn ayuu yiri Mr. Shuwes dawladda Mareykanka waxay aaminsan tahay in dawladda madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre ay ku hawlan yihiin sidii dalka uga hirgelin lahaayeen nabad iyo xasilooni dib u heshiisiin iyo in shaqooyin loo abuuro dadka Soomaaliyeed beesha caalamku waxay si dhow ula shaqaynaysaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada kale dalka ka jira si nolosha dadka Soomaaliyeed kor loogu qaado wada shaqayntu waxay ka hortagaysaa inay dalka ka dhacdo macluul sidoo kalena waxaan ka shaqaynaynaa dib u habaynta laamaha amniga dalka si ammaanka iyo kala dambeynta loo soo celiyo inagoo taageersan ololaha xasilinta caasimadda ayuu yiri danjire Stephen Shuwes safiirka Mareykanka ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in horumarka lagu sameynayo muddada gaaban isla markaana nabad iyo xasilooni Soomaaliya laga hirgelinayo ay u baahan tahay in la sii joogteeyo dadaalada socda si horumarka uu noqdo mid wax ku oola waxa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed iyo saaxiibadooda caalamku inay si wadajir ah u wada shaqeeyaan horumarkan ma xagal daacin karaan koox kamid ah muwaadiniinta ka faa'iidaya dambiilayaasha ka baqaya ku dhaqanka sharciga iyo isla xisaabtanka ayuu yiri safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa hay'adaha kala duwan ee dawladda sida fulinta iyo sharci dejinta inay meel iska dhigaan kala duwanaantooda siyaasadeed diiradana ay saaraan kamina dhalinta waxyaabaha horutabinta leh jabinta argagixisada
dib u dhiska hay-adaha amniga dalka dardargelinta dakhliga dalka abuuridda ilo dhaqaale iyo dejinta shuruucda wanaagga khayraadka dalka dib u eegista dastuurka iyo aftuuqaadistiisa ka shaqaynta doorasho qof iyo cod ah xoojinta dib u heshiisiinta oo ay ku jirto wadahadalka Somaliland xoojinta dhaqaalaha dalka shaqo abuurka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo meelmarinta hindisa sharciyadyada la dagaalanka musuqmaasuqa waxbarashada iyo kuwa kale danjiraha sidoo kale waxa uu sheegay in shaqooyin badan ay hor yaalaan Soomaaliya hase ahaatee la gaari karo isagoo dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay dul qaataan isla markaana dhibaatada soo socotay 30 sano in ku dhow lagu xallin karo muddo yar haddii si wada jir ah loo shaqeeyo sidoo kale waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay lahaadaan feejignaan dheeraad ah lana shaqeeyaan dawladooda ugu dambeyn Mr. Shuwez waxa uu xusay in dawladda Mareykanku ay ku faanayso xiriirka sii xoogaysanaya oo ay la leedahay Soomaaliya aynay ka go'an tahay inay kala shaqeyso dib u dhiska dalka dimuqraadiyadda nabadda iyo sidoo kale Soomaaliya oo noqota qaran barwaaqo ah iyadoo wali lagu guda jiro toddobaadka xurriyadda ayaa munaasabado lagu xusayo kowda luuliya waxa lagu qabtay qaar ka mid ah dalalka caalamka warbixinadana waxa Norway iyo sidoo kale Koonfur Afrika inooga soo kala diray wariyaasheena Xasan Rasta iyo Maxamed Abuukar munaasabad ballaaran oo lagu dabaaldegayay sanad guuradii 57 ee ka soo wareegatay maalintii ay xurriyadda qaateen gobolada waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ka dhacday xaafadda Easterfield ee magaalada Cape Town waxaana munaasabadani oo ay boqolaal ruux oo Soomaali ah ka soo qayb galeen soo qabanqaabiyay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape ee dalka South Africa munaasabada ayaa waxaa laga soo jeediyay hadallo guubaabin ah iyadoo ay ururka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo fanaaniinta Soomaalida ee South Africa ku nool ay madashaasi ku soo bandhigeen heeso isugu jira wadani iyo kuwa kale oo caadi ah gudoomiyaha jaaliyadda Somali Safe Community Cabdi Cali Sguure iyo gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka South Africa Abuukar Buka iyo qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay madasha ay munaasabada ka socotay ayaa ka hadleen muhiimadda ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay kowda luuliyo oo ah maalinta ay midoobeen gobolada koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya isla markaana ay ka xuroobeen cadawga Soomaaliya sidoo kale waxaan hambaliyay mid kamid ah hawada martidaya madaxda dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Khayre iyo xubnihiisa waxay noo barana in aan calanka Soomaaliya aan ilaalino dowladnimada aan ilaalino dhulkeena aan ilaalino dibna aan ugu laabano wadankeena Soomaaliya aynu dhisano جمهورية فدرالية الصومالية وحالها لدي لبي 7 أكتوبر كل سقاط وقتي أبد جمهورية الصومالية أحداثها عالم والله عالم كيل وعين وعامركي يقول شيء لقى تاجي مجالها هديسة عاصمة الغد هي دولة الصومالية وحالها لدي الله وحالها لدي الله حريص محمد حوالي الجبال أو حبيب اسمي بالمال دون إسرائيل أفريقيا هذا هو ولا لا وسيكون واحد Soomaaliya inuu isku daro boqolkiiba shan ka kalluumaysata heerta Afrika ugu dheer wala la maxay ku faa'iideysan marka waxa soo baxay fursad inaan barido
munaasabadani ayaa waxa ay ka mid tahay munaasabado dhowr ah oo lagu qabtay dalka dibadiisa iyo gudihiisa islamarkaana lagu weyneynayay xuriyadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ee qaadatay sanadii 1960 islamarkaana calanka buluuga ah iyo xidigta cad dhexda ku leh laga taagay geyga Soomaaliyeed. محمد أبو كرباريو SNTV كابتن سود أفريقيا. xuska sanad guuradii 57 ee ka soo wareegtay xornimadii gobolada koonfureed ee Soomaaliya iyo Israaciil koonfur iyo waqooyi ayaa lagu qabtay magaalada Malmö ee dalka Sweden. xafladda dabaaldega sanadkan oo lagu qabtay beer weyn ayaa walow uu roob xoogan da'ayay waxaa dadkii Soomaaliyeed u dabaaldegayay 1 Luulyo ee magaalada Malmö madadaalin iyo suugaan u soo jeediyay fanaaniin iyo odayaal Soomaaliyeed oo ka sheekiyay muhiimadda ay leedahay maalintan. waxaana ugu horeyn kulankii Furay Cali Ciise Gane oo odayaasha magaalada Malmö sharaxayna weynaanta ay leedahay maalintan. maalin lagu weyn waa maalintii Soomaaliya ay madax banaanaatay waxaa la rabaa qof walba farxad iyo wanaag inuu ku soo dhaweeyo idinku waxaad tihiin dhalinyaradii xilligaa ka bacdi dhalatay laakiin annagu waa joognay maalintaas 24 saac waxaa jiray dad aan waxba cunin oo intaa u taagnaa farxaddii calanka gubaystahana la riday calankii Soomaaliyeedna la taagay yaa keenay calankan sidoona ku yimid calankan waxaa keenay 13 wiil oo runtii maanta haddaan qaado oo ilmahayna camal noqon karo markaas markii la joogay kan ugu weyn ayaa wuxuu jiray 36 sano waddankanaan joogno oo gaalada waddankan matigeliyey dadka joogaa diinay kala haystaan mabda'yay kala aaminsan yihiin ilma habreed ma ahan ilma abti ma ahan ilma adeer ma ahan seediyo walaal iskuma ahan haddana waxay ku heshiiyeen oy ku wada nool yihiin inay wada noolaadaan ilmahooda mustaqbal sameeyaan annagoo isla dhalannay oo intaa isku ah oo isku diina maxaa loo diiday marka inaan dalkeena dhisano wallaahi sinaba uma kalaabtaan ismahurtooy ishano oo heesalaynin Soomaaliya dad baa dhiig u huray dad hamtidooda ku bixiyay dad baa dadkood cirbada loogu dhuftay marka maalinta 1 Luulyo waa maalin muhiim soo jeedaan maanta waa maalin dadka Soomaaliyeed aad ugu weyn oo maalinka xorriyadda aan qaadanay waxaan ku jiraa guddiga soo qaban qaabiyay xafladan sharafta leh oo ku baxday waqti badan iyo juhdi badan la geliyay si dadka ummadda Soomaaliyeed lagu caawiyo ama loo dareensiiyo inay dareenkoodu la qabaan dadka kale ee wadankii xilliga xorriyadda qaateen. ilaahay baa mahadale waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waqtiga iyaga ayaanta wacan Soomaaliyeed Soomaalida isu timi hambali aanu leenahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin adiguna hooyo noolow hambali dadka Soomaalida dhan baa dunyada joogaan maanta anaga soo faraxsanahay magaalada Malmö waxaan ku rajaynayaa ninkan inta u faraxsantihiin Xasan Raasta SNTV Malmö Sverige. halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho iminkana akhbaaraadka dibadda. dawladda Qatar ayaa muujisay inay ku adeeg yihiin dalabaadkii hore uga yimid dawladaha Carbeed ee xiriirka u jaray dawladda Qatar. wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in dalkiisu diiday dalabaadkii ay ku soo eedeeyeen dhowr dal oo Carbeed laakiin waxa uu intaa ku daray inay diyaar u yihiin wada hadal jawi caafimaad qaba in lagu kulmo iyadoo ay maalin kaliya ka harsan tahay muddadii ay u qabteen dalalkaasi oo Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ka mid yihiin ayaa Maxamed bin Cabdirahmaan bin Jaasim Al Thani waxa uu ku celceliyay in Qatar aanay aqbali doonin wax kasta oo qarnimadeeda faragelin ku ah bari oo Isniin ah ayay ku eg tahay ballan qaadkii goodiga ahayd ee ay dalalka Carbeed u qabteen inay kaga jawaab celiso liiska ay ku qoran yihiin arrimaha loo gudbiyay asahaatee ilaa hadda Qatar si cad uma aanay muujin inay diyaar u tahay inay fuliso arrimaha laga dalbaday waxaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sheegay in dalabaadka loo soo gudbiyay yihiin kuwa albaabada oo dhan ka soo xiray habkii lagu wada hadli lahaa waxa kaliya u banaanin ay tahay in Qatar ay ku gacan seerto inkastoo ay wada hadallo isku mid ah ay ka soo yeeray madaxda caalamku ku baaqeen in la isku tanaasulo ayaa waxa muuqata in aan ilaa hadda halkii lagu soo eeganaa ama la isku seekanaa waxba lagu soo dhaqaajin warkii oo daawadayaal saaxiibayaal idin kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waa naga inta warka waxa idin la socodsiinaya anigoo Muxudiin Macalin Cabdulle aniga saaxiibadii kale ee warka kala qayb galay dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa
sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi